Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaasha iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha dunida inagala socda. Halkani waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana inoo socda barnaamijyadeena imtixaanaha ah ee aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan oo aan maalinteedii labaad soomanahay. Haddaba ciwaanka barnaamijkeenan maanta waxa uu noqon doonaa waa kuwee dadka uu sharciga u fasaxay una baneeyey inay afurnaadaan bisha barakaysan ee Ramadaan iyada oo ay dadka kala sooman yihiin. Waxaa jira dad uu sharciga u baneeyey oo uu u fasaxay inay afurnaadaan oo aysan soomin bisha barakaysan ee Ramadaan iyada oo dadka kale ay sooman yihiin. Waxaana dadkaasi ka mid ah dadka gaboobay ee da'da ah, qofka xanuunsan ee la xaqiijiyey in xanuunkiisa uusan ka bogsoonaynin. Kuwa waxa uu sharciga u baneeyey inay afurnaadaan oo maalin kasta ay quudiyaan hal qof iyagoo aan laga doonaynin in ay dib ka gudaan soonka oo soonku sidaa uga dhacayo. Culimada qaar ayaa qaba in dadkaasi ay soo geli karaan haweenka uurka leh iyo kuwa naaska nuujinaya ubadkooda haddii ay naftooda iyo ilmahooda u cabsadaan. Dadka shaqooyinka culus uu dhuunigoodu ka galay iyo weliba maxaabiista xabsi daa'inka ku xukun iyo shaqada adag ayaa iyaguna qayb ka noqon kara ayay leeyihiin culimada qaar. Dadka buka ee xanuunkooda la xaqiijiyey in ay ka bogsoonayaan oo rajo laga qabo ayaa iyaguna loo fasaxay in ay afurnaadaan oo aysan soomin, laakiin soonka ayaa looga baahan yahay in ay dib ka gudaan. Xitaa lamida dadka safarka ah ayaa loo fasaxay in ay afuri karaan oo aysan soomi karin haddii ay u baahdaan, taasoo iyaduna laga doonayo marka ay saldhigtaan in dib ay ka gudaan. Halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Ramadaan mubaarak. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا آمين. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulaahi Nuur Xasan Shiine.